السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ninka meesha idin kala hadlay waa Maxamed Ibrahim Cumar. Waxaan rabaa inaan soo gudbiyo 5 shay oo dan ku ah. Dhageyso, I believe inaad mashquulsan tahay. Dhagaha fur laakiin oo dhageyso. Number 1 waxa ugu horeeya ee u baahan tahay ee dantaada ah waa waxbarasho. Barnaamijyadan hadda intaan bilaabay diyaarintooda waxaan ogaaday in dad aad u fara badan ay waxbarashadu aysan saa ku sii ahayn aysan wax badan ka aqoonin teknolojiyada ama cilmiyada kale ee adduunka maanta ka jiraba. Laakiin ruux walba maanta wuxuu awoodaa oo uu haystaa taleefan u sahli kara in uu wuxuu rabo ka barto ama diin ha ahaato ama maadi ha ahaato. Marka walaalayaal walaalka Soomaaliga ay dhageysanayo ama gabar ha ahaado ama wiil ha ahaadee, waxaan rabaa si ay noloshiina u fiicnaato oo u kobocdo oo qof jiro u noqoto in aad u soo jeesato cilmiga maadiga iyo kan diiniga labadaba. Oo waa labadaba la isku dhaho waxbarasho, in wax la barto, in xooga la saaro. Waxaad moodaa dadka qaarkii in aysan u jeedinba in wax la baran karo ama ay ku leeyihiin waan weynaado wax ma baran karo. Marka waan weynaado wax ma baran karo wax la dhaho ma jirto. Anytime xilli walba iyo goob walba oo aad joogto waxaad baran kartaa wixii markaas maskaxdaada ku soo dhaco ee aad rabto. Haddii af Soomaaliga uu kugu adag yahay waqti badan ma qaadanayso inaad af Soomaaliga barato. Haddii af Ingiriiska uu kugu adag yahay waqti badan ma qaadanayso inaad af Ingiriis barato. Luuqadda marka maadaama aan soo hormariyay waxaan u soo hormariyay luuqadda waa wax lagu fahmo. Haddii luuqad ahaan af Soomaaliga aad ku fiicnayn ma fahmi kartid waxa lagu barayo ee af Soomaaliga ah, qoridiisa iyo cashir ahaantiisaba. Dhanka kale Ingiriiska ama luuqadda Ingiriiska Englishka haddaadan aqoonin waxyaalo fara badan oo waxa iyaguna jira ka dahsoon. Marka ka bilow haddii aad luuqadda garanaynin luuqadda baro, af Soomaaliga hadaad garanaynin baro, Englishka hadaad baranaynin baro, hadaad garanaynin baro, diinta hadaad garanaynin baro. Bilow cashirka qaado maalinka ugu horeysa tag dugsiga ama meeshii macallinka aad ka heli karto. Try inaad wax kororsato oo wax barato. Taa waxay ka saacidaysaa markaa inaad noqoto qof jira oo adduunyada maanta wax ka qabsan kara. Haddaad waxba aqoonin adduunka maanta wax kama qabsan kartid. Qoyskaaga ama ninkaaga ama naagtaadana ama reerkaagana waxba kuma soo kordhin kartid. Laakiin bilow wax walba waxa ku ah ama bardhaqaaq waxa ku ah inaad wax barato ood isku daydo starting from now hadda inaad bilowdo sidii aad ku gaari lahayd cilmi adduun iyo cilmi aakhiraba saad ku kororsan lahayd. That's number 1. 5 arrimood oo dan ku ah rabaa inaan ka hadlo oo ugu horeyso waxbarashada aasi ay u tahay. Qof aan waxba baranin waa qof aan jirin. Marka walaalayaalow waxa la barto waxay noqotaba diin, maadi, everything waad baran kartaa. U dhaqaaq tallaabo qaad u dhaqaaq. Haddii aad ka hesho taladeeda iyo waanadeedana noo mahad celi. Ilaahay baa mahad iska leh. Noo sheeg maalinkii aan kugu dhiirigelinay waxbarashada oo aan ku niri go ahead, go waxbaro, macallin raadso, meel aad wax qabso. Khayr badan baan idin rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.